toddobaadkan sheekada ugu xiisaha badan ayaa ka dhacday magaalada Brentford ee wadanka Ingiriiska kadib markii gabar ay kamid ahayd dadyoogii u dhashay wadanka Ukraine ee dagaalka Ruushka uu ku qaaday wadankooda awgeed ugu soo barakacday ayaa arin lama filaan ah ka sameysay guriga lagu soo dhaweeyay iyadoo qaxootiya Sofia Kardem oo 20 jir ah kana soo qaxday Ukraine ayaa 10 maalmood oo ay ku nooleed guri ay degnaayeen lamaano u dhashay wadanka Ingiriiska ilaa carruur ay dhaleen ayaa waxay la wareegtay aabihii reerka kaasoo loo magacaabi jiray Tony Carter ayadoo lama filaan ay arintan ku noqotay dadka isticmaala aalada social media iyo kuwa ku nool iyo guud ahaan dadka ku nool boqortooyada wadanka UK Tony oo 29 jir ah waxa uu ka tagay xaaskiisa iyo laba carruur ah wuxuuna raacay gabadhan yar ee aadka u quruxda badan ee ka soo qaxday wadankeeda ayadoo nolol cusub hadda ugu bilaabatay magaaladii sida weyn loogu soo dhaweeyay ayadoo markaani noqonaysa marwada Tony Garnett kaas oo ay kala soo baxday gurigii iyo reerkii uu lahaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka uu ku qaaday wadanka Ukraine waxa qaaradda Yurub buux dhaafshay dadka u dhashay wadanka Ukraine oo maangeliyo doonka ah ayagoo dhibaatooyin badan kala kulmayay meelaha qaar halka wadamo badan ay si weyn loogu soo dhaweeyay wargeysada ugu afka dheer wadanka Ingiriiska ayaa si aad u hadalhaya arintan ka dhacday magaalada Brentford taasoo dadka badan ilma filaan ku noqotay ay saameysay Sofia oo maangeliyo doon ah isla markaana si wanaagsan loogu soo dhaweeyay magaaladaasi gabadhan ayaa noqonaysa gabadhii ugu horeysay gurigii sidii qaxootinimada loogu soo dhaweeyay ka dhaxashay odaygii guriga kaasoo la leeyahay waxay ku soo jiidatay quruxdeeda